صوبنا ورسولك سفك مؤمنين تا صدري علاشي كسلامي قانتو كويساقي ماركنا صدر هذا كتابك يوكوس سواي أركانتو سرت أن لكوبين نبي لسيو رسول الله عليك سلام gudoomiyaha guud ee jaamacadda Daaha International University Dr. Sheekh Abubakar Xasan Maalin ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Soo dhaweyntan way soo qaban qaabisay jaamacadda Daaha faraceeda Gaalkacyo ee Galmudug. Ayaa waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah culimada ugu waaweyn magaalada Gaalkacyo iyo gobolka Mudug. Sheekha ayaa magaalada Gaalkacyo u yimaaday ka qaybgalka xafladda qalinjabinta dufcaddii koowaad ee ka qalinjabisay jaamacadda Daaha faraceeda Gaalkacyo Galmudug taas oo ka dhici doonta bari magaalada Gaalkacyo. maantay waa maalin weyn waa maalin farxad leh waa maalin aan soo dhaweynayno dad ahlul cilmi ah ee ilaahay cilmigiisa xambaarsan culimadan waxa leeyahay ku soo dhawaada meel qorraxa taagan tihiin in ku dheeraymayno magaaladii ku soo dhawaada Gaalkacyo ku soo dhawaada culumadii iyo ahlul cilmigii ku soo dhawaada intaan waxa idin soo bixeen idinka inay takriiminahaya oo inay sharfinahaya oo cilmiga sharfinahaya oo quraanka sharfinahaya weeye anagoo ku hadlahaya magaca jaamacadda Daaha العالمية أنكم waxaan leenahay marhaban soo dhawow gudoomiyaha jaamacadda الشيخ الدكتور محوها أبوبكر حسن مالين waxaan ka soo dhaweynaa فضيلة القاري المقري الشيخ معلم أحمد يلحو iyo ayagana marhaban ayaa leenahay inta kaleeto oo magacooda aan sheegin qof kasta waxaan leeyahay bimansibihi wajahihi wa ilmihi marhaban ayaa ku leenahay nicmo ilaahay looga xamdiyo ayaa maanta meeshan ka dhacday ilaahay baa ugu shukrinaynaa maanta mashaayikhdeena waaweyn inaan meeshan ku soo dhaweyno oo aan u soo baxno ilaahay nagu ilhaamiyay baa ugu xamdinaynaa sheekheena Sheekh Abubakar Xasan Maalin sheekheena Sheekh Aadam Xilsi Barre iyo macallinkeena Macallin Axmed Yalaxow iyo wafdiga ay hogaaminaya sheekheenu kulli waxaan leenahay marhaban Allah idin sharfo maanta waa yawm al-mashhuud rasuulkeena calayhi salaatu wa salaam markii uu Madiina soo aaday oo soo hijrooday reer Madiina oo dhan way u baxeen ayagoo calamada iyo caleemad cagaaran wata ayagoo kulli maca dumarku isku soo baxay ayay rasuulka kor uga hortageen طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دع قصيدة دير بكو قادين مركا وحي دليل طايدتك أهل العلم إن لغا هرتغو إلا تعظيميه قفك ذاتدي سداته واسكو ذاته لكن وحا أي كوكلا شرفو ذاته ووحي حنبارسان تهي وحاوي مشايخ دينا شيخنا شيخ أبوبكر حسن مالين أو أها شيخاني نصوبري دينتا إسلامك وقتك نقول بحشي إلهي خير جزاء الله كعبال مريو شيخنا Sheekh Abubakar Xasan Maalin iyo wafdiga qiimaha badan ee la socda waqti qorrax kulul badan baan taaganaa sheekhan wax ana ku hadlaya afka odayaasha dhaqanka gobolka Mudug ee ku suntan culumma jacaylka Sheekh Abubakar ku soo dhawow degmada Gaalkacyo ku soo dhawow gobolkaagii ku soo dhawow ardadaadii iyo talaamiidaadii waqti kulul baan joognaa sheekha marhaban dambigeena iyo wixii uu keenay Allah noo dhaafo cadaawada muslimka dhexdiisa ku jirta oo shaydaanku uu calool geliyana Allah noo dhaafo Allahna naga qaado quwadiisa iyo xiiladiisa Allah nooga qaado Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ugu horeyntii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan uga mahad celinaynaa si nabadgelyo ah inoo la kulmiyay ahbaabteen nagu soo dhaweysay wujuuhdooda iyo qulubtooda wanaagsan waxa kale oo u mahad celinaynaa علماء الدين كقبلك جارهان مجالدا Gaalkacyo iyo dhalinyarada iyo talabatul ilmi iyo madaxda sharafta leh iyo odayaal dhaqameedka iyo cid walba oo ka qayb qaadatay soo dhaweyntan heerkeedu uu aad u sareeyo ee quruxda badan ee runtii ilaa saacadan qorraxdan kulul u taagnaa inay wujuudooda iyo qulubtooda wanaagsan baa inagu soo dhaweeyaan iyagana waa u mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa ilaahina ka baryaynaa أن يجمعنا في جنة الفردوس كما جمعنا في هذه الساحة الشريفة ماشان بنان إلهي سبحانه وتعالى إنه كل مية
waxaan weydiisanaynaa annagoo mutaqaabiliin innagoo ah calaa sururin marfuuca in ilaahay jannatulfirdows inagu kulmiyo magaaladan runtii gaalkacyo waa magaalo qadiiman wa xadiisan ba ahayd madiinatulcilmi waalculamaa waalakhyaar waalabraar waa magaalo weligeed ba ahaan jirtay magaalo diimeed magaalo cilmi magaalo culimo iyo dad akhyaaruhu ay ku soo dadaaleen ayna soo nooleeyeen oo runtii uu ugu magac weyn yahay shaykhana aljaliil alcallaama sheekh cali samatar iyo mashaaikhdii ka horreysay iyo shuyuukhdii iyo talaamiiddii isaga ka dambaysaba waa magaalo ay dadaal weyn uu ka muuqdo maxaa yeelay waxaannu arkaynaa quruxda ardayda iyo xerta iyo dadka culimmada ah juhdi waxaa ku bixiyey culimmadii ilaahay subxaanahu wa tacaala qubuurtooda rawda min riyaadi aljanna ilaahay ha uga dhigo oo sheekh cali samatar iyo culimmadii kale talaamiiddiisii iyo akhyaartii ayaa magaaladan runtii ka dhigay madiinatulcilmi waalculamaa waalakhyaar waalabraar marka innagu waxbaba kuma soo kordhin karno magaalada waxba kuma soo kordhin karno dadka akhyaarta ah ayaa diinka maaragta iyo cilmiga iyo cibaadada iyo daacada ilaahayba ku nooleeyey kaliya waxaannu u nimid dadka axbaabteenna inaannu soo salaanno dadka dalabatulcilmi ah inaannu kala faa'iidaysanno iyo barnaamijka ku saabsan ardaydii ugu horreysay oo mirihii ugu horreeyey oo nooga soo qalin jebiyey jaamacaddeenii jaamicatu daaha alcaalamiya inaannu la wadaagno farxadda iyo guusha ay ummaddooda iyo naftoodaba ay u soo hooyeen intaas ayaannu u nimid waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala kulankan iyo safarkan inuusan noqon doonin kii ugu dambeeyey ilaahay kama dhigo safarro dambe ee barakaysan sidan oo kale maaragtaahay maxabbada iyo kalgacaylka ilaahay dartii aannu isugu soo dhoweyno ilaahay waxaan rajaynaynaa kuwo kalena ay nooga dambeeyaan